السلام عليكم أصحاب السودة وهذا رواب حوغان oo ku dhawaad 20 saacadood ee la soo dhaafay ka da'ayay bartamaha gobolka Texas ayaa waxa ku geeriyooday ilaa iyo 13 qof ilaa hadda inta loo yahay dhimashaduna waa laga yaabaa inay intaasi ka kororto mas'uuliyiintu waxay sheegayaan xilliyada samarka waxa jiro meelo camps oo xerooyin oo wiilasha iyo dhalinyarada kala leh mararka qaarna isku jiraan mararka qaarna gooni ay u leeyihiin inay xilliyada samarka ay tagaan telefoonada laga qaado meelahaas activity kala duwan ay ku sameeyaan xitaa maanta oo maalintii xurriyadda ah 4 July loogu dabaaldego marka waxa la leeyahay xeran la yiraahdo Camp Mystic oo gabdhaha oo kaliya ah 23 gabdhood ayaa ilaa hadda la leeyahay inay dhinteen inay nool yihiin ilaa hadda lama ogo 23 gabdha ah oo waliba gabdha da'yar ah ayaa ilaa hadda la leeyahay daadadkan ku dhuftay gobolka Texas ku dhawaad muddo 40 sano ah daadad noocan oo kala lama arkin guryo fara badan ayay qaadeen geedo fara badan ayay jajabiyeen hadda mas'uuliyiinta gobolka Texas wax kasto awoodooda ay isugu geeyeen in si ay u badbaadiyaan dadkaasi marka gabdhaha la leeyahay hadda lama ogo inay meel ku jiraan oo wax telefoon aysan haysan oo communication ama xiriir la'aan ay haysato inay dhinteen inay nool yihiin 23 kaasi gabdhood ilaa hadda lama ogo laakiin diyaaradaha helicopter iyo doomo ayaa mas'uuliyiinta kala duwan ee gobolka Texas hadda ay ku howlan yihiin sidii dadkaasi loo badbaadin lahaa boolisku dadka qaar guryahooda ay ugu tagayeen oo ay dhahayeen waa inaad si degdeg ah uga baxdaan intii laga gaaro laakiin xilliga habeenimada xalay ahayd ayaa dad fara badan ay daadad ku qaadeen degmada la yiraahdo Kerr County ayaa 13 qof ay ku geeriyoodeen dhimashaduna waa ay kordhi kartaa halka sidoo kale xere kale ay jirto iyadana wiilal kaliya ay ku jireen iyadana sidoo kale loo malaynayo in tira kale ay maqnaan karaan maadaama wali aan la gaarin halkaasi marka dawladda federaalka xaalad degdeg ah ayuu ku dhawaaqday gobolka Texas sidoo kale waa uu ku dhawaaqay waxaana dawladda federaalku ay sheegtay inay caawin doonto gobolka Texas welina roobabku ay sii daayaan inaga xageena maanta kuleelku 100 ayuu gaaray gobolka Texasna daadad ayaa dad ku dilayaan marka Mareykanku isaga ayaan war iska haynin oo weyniga ka batay meelo dib ayaa ka socdo meelo xaaladu waa iska degantoo qabow ayaa jira meelo 100 ayayba maraysaa in cadceedu ama qoraxdu ay maraysaa xageena meelana roob ayaa ka da'aya duufaanana waa ay jiraan marka Mareykanku isaga ayaa weynay ka batay ilaa hadda 13 qof ayaa dhimashada la sheegaya 23 caruur oo gabdho oo kaliyana waa la leeyahay oo xeran Mystic leeyahay ku jiray oo hadda baadi goobkooda lagu jiro wixii warar ah soo kordha hadii aan leedmo waa idila soo socodsiinaya laakiin xaaladda gobolka Texas wabiga la yiraahdo Guadalupe ayaana waxa ku sameeyay fatahaadaasi ayaana dhimashada keentay